caruurey beri waxaa jiri jiray nin beenaala ah oo tuugna ah. ninkaas maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu arkay geed ay shinni ku diyaarsatay malab. ninkii beenaalaha ahaa tuugana ahaa wuxuu isku dayay inuu shinnida malabka diyaarsatay uu qaato iyadoo dad kale ay lahaayeen. wuu fiiriyey geedkii wuxuuna ku fekeray sida uu ku qaadan lahaa. wuxuu soo qaatay basaar iyo qori dab ah iyo caws. markii uu isku diyaariyey in uu geedkii gurto oo uu geedkii fuulay ayaa waxaa u yimid ninkii geedka shinnida ku diyaarsaday. wuxuuna su-aalay warniyahow maxaad ka haysaa geedka dushiisa. tuugii beenaalaha ahaa wuxuu ku jawaabay waxaan rabaa inaan geedka dushiisa ku leyrsado. oo maxaad masaarta u sidataa ayuu haddana su-aalay. tuugii beenaalaha ah wuxuu ku jawaabay masaarta waxaan rabaa inaan ku jarto laamaha geedka iskaga jaro. ninkii haddana wuxuu su-aalay maxaad u sidataa cawska. tuugii beenaalaha ah wuxuu ku jawaabay cawskan waxaan rabaa inaan ku fariisto si dharka uusan iiga wasaqoobin. ninkii wuxuu haddana su-aalay qoriga dab kale maxaad u sidataa. tuugii beenaalaha ah wuxuu ku jawaabay taasi jawaab uma hayo.